gudoomiyaha degmada Boolaberde gobolka Hiiraan ee xubno kale oo maamulshay ku tirsan babayo kormeer indheendhaan iyo kasaadana goobaha wala mashaariic horumarineed ee ku dareertay degmadaas ee Boolaberde Ibrahim Macallimo inay faahfaahiyeen dhagaxdhigan mashaariicda lagu fulinayay degmada Boolaberde ee gobolka Hiiraan ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda howlaha guud ee guriyada dawlad goboleedka Hirshabelle wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dawlad goboleedka Hirshabelle ogayaha joogtada wasaaradda arrimaha gudaha ee dib u heshiisiinta dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxa goobjoog ka ahaa goobtan lagu fulinayay mashaariicda xildhibaano ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya kuwa ka tirsan dawlad goboleedka Hirshabelle horeen waxa goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Boolaberde ee gobolka Hiiraan Abdicasiis Duurow oo si weyn u soo dhaweeyay madaxdii maanta soo gaartay degmada Boolaberde ee gobolka Hiiraan waxaan sheegay oo kaliya anoo mahad celinayo in aan mid ballan qaadno si awal baan hore u sheegnay gacanta midigta way noo taagan tahay aqoonteena la qabnaa fari kama qodno waxa inta leer waxaan ballan qaadayaa wasiiradeena xukuma hortooda ka sheegay anna in kiimis bar leexiyaan riboorkiisa gudbiyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dawlad goboleedka Hirshabelle wasiirka howlaha guud ee guriyada dawlad goboleedka Hirshabelle wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawlad goboleedka Hirshabelle ayaa sidoo kale goobtaasi ka hadlay ayagoona sheegay in mashaariicdan lagu horumarinayo gobolada Hirshabelle ay iska kaashanayaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dawlad goboleedka Hirshabelle iyo hay'adda xasilinta sanduuqa Soomaaliyeed ee SSF tan kalena waxaan maanta u mahad celinayaa dadkii ka soo shaqeeyay in ay dhismo garoonkan kubadda cagta ah ee magaalada Boolaberde taariikh badan ee leedahay oo ay bulshadu soo gudbiyeen inay baahidooda koowaad tahay marka waxaan aad ugu faraxsanahay inaanu mashaariicdaas maanta aanu dhagax dhigno oo naga caawisay maalgelinteeda sanduuqa Somali Stabilization Fund wixii mas'uuliyada oo ku tacalluqa mashruucan iyo howshiisana haday tahay tayadiisa iyo haday tahay qaabka wax loo qabanayo iyo hadii ay tahay wax kastaba waxa anaga mas'uul nooga ah wasaaradda howlaha guud sidoo kale waxa meeshaasi ka sugnaa oo goobtaasina ka hadlay hogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dawladda federaalka Soomaaliya isagoona sheegay in mashaariicdan ay yihiin kuwa inta badan laga daboolayo baahiyaha ka jira deegaanada Hirshabelle runtii waxa loo baahan yahay waxay tahay reer Boolaberde mashaariicdan loo keeno waa tijaabo aad iyo aadaan waxaan ugu faraxsanahay dawlad goboleedka Hirshabelle oo wasiiradiisu ay ka socdaan xildhibaanadiisa inay aad iyo aad isugu mashquuliyaan mashruucan guud ahaan mashaariicda lagu fulinayo deegaanada Hirshabelle ayaa waxa ay yihiin kuwa inta badan laga daboolayo baahiyaha bani'aadamnimo ee ka jira deegaanada Hirshabelle Ibrahim Macallimo TV-ga caalamiga Janawka TV magaalada Baydhabo